warbaahinta CNN ayaa daabacday warbixin xasaasi ah oo ay ku sheegayso in hay'adda sirdoonka ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo CIA ay waddo qorshe uu Mareykanku ku taageerayo jabhadda mucaaradka Kurdida ah ee muddada dheer dagaalka kula jirtay Iran. KDPE oo loo soo gaabiyo Kurdistan Democratic Party Iran waa jabhad muddo dheer dagaal kula jirtay Iran oo haysato kumanaan kun oo askari maantana u aragtay inay soo martay fursad lifetime chance ah ama fursaddii ay sugayeen inta noloshoodii ay soo jireen oo dhan, taasoo ah inay ka faa'iidaystaan maadaama oo dalkii ay iyagu dagaalka kula jireen weerar ku soo qaaday dalkii adduunka uga awoodda badnaa. Dhanka kale Mareykanka laftirkiisu waxaad moodaa in uu garowsaday in uusan xukunka wadaadada shiicada ah ee Iran ka taliya inuusan ku bedeli karin duqaymo dhanka hawada ah oo kaliya oo uu bedelay istiraatiijiyadii uu dagaalka markii hore ku galay una bedelay in uu ciidamada lugta ee Mareykanka rabo inay galaan gudaha dhulweynaha Iran. Meesha ugu fudud ee ay kasoo geli karaan ama xuduudka ugu fudud ee ciidanka Mareykanka kasoo geli karaan waa xuduudka Ciraaq iyo Iran oo ay degan yihiin ama ku xoogan yihiin qowmiyadda Kurdiyiintu, waana taata keentay in Mareykanku uu sida la sheegayo uu toos ula xiriiray hogaamiyaha jabhadda KDPE ee Kurdiyiinta Iran kuna sheegay inuu Mareykanku diyaar u yahay inuu taageero halgankooda ay kaga soo horjeedaan Iran. Hawa xaqiiq madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khadka taleefanka kula hadlay hogaamiyaha jabhadda Kurdida oo magaciisa la yiraahdo Mustafa Hajri wuxuuna u sheegay in Mareykanku uu taageerayo halgankooda ay kula jiraan ama kaga soo horjeedaan Iran, laakiin qorshuhu waxa weeye in ciidan Mareykan halkaas la geliyo oo ay sidaas ku soo galaan xuduudda Iran. Mareykanku markaa wuxuu isticmaalayaa tactic la mid ah tii uu isticmaalay Ciraaq oo ah in uu isticmaalo Kurdida ku nool Iran. Mareykanku markii uu Ciraaq ku duulayay dadkii ugu badnaa ee soo dhaweeyay duulaanka Mareykanku waxay ahaayeen Kurdida reer Ciraaq